caawa waa haweenkeeni koobaad oo uga hadlayno guud ahaan sida loo noqon lahaa Python developmentiga iyo wadadii loo mari lahaa. Marka si guud waxaan u sharaxaynaa si bilow ah qof ku cusub maanta in uu bilaabo Python muddo yarna uu ku noqdo qof waqtiga uu geliyey wax u qalma yaqaana. Marka waxaan ka bilaabaynaa mawduuceena koowaad. Mawduuceena koowaad waxaan ka bilaabaynaa qofka rabo webinarigan dadka kamid ah oo webinarigan kasoo qayb galay maxaa laga doonayaa marka ama wuxuu ka baran karaa markuu dhammaysto. Kow horta webinarigan waa beginner waaye, waa qof kasta oo bilow ah oo rabo inuu bilaabo programming ayuu saacidayaa. Sidoo kale ardayda oo fresherka ah oo mar dhow soo kale qalin jabiyey oo rabo in si qoto dheer ay xirfadan u bartaan waqti geliyaan wuu anfacayaa. Sidoo kale wuxuu webinarigan u saacidayaa qof xirfado kala yaqaano ama arday hore u soo aajiray ama xirfado kala bartay oo rabo ama isla IT ama programming ku dhex jiro luqado kale sida PHP iyo Java yaqaano oo rabo laakiin inuu u soo wareejisto oo aag bedesho oo Python u soo bedeshana wuu anfacayaa. Sidoo kale qof developer ah oo ku shaqeeyo xirfadan haddana rabo in uu shifti ahaan Python u soo wareego wuu saacidayaa. Marka intaasoo dhan ayuu webinarigan ku fagareynayaa. Intaas markaan kasoo gudubno qodobadeenan ayaan bilaabin doonaa. Qodobkan aan ka hadlaynaa. Qodobkan wuxuu diiradda saarayaa sababta Python ay ilaa iyo hadda u tahay demand. Marka luqado la dooranayo ama luqad in la barto la rabo way ka siman yihiin waxqabadka iyo hawsha say u qabanayaan. Laakiin waxaa la fiiriyaa meesha aad waqtiga kaaga baxayo damaanad ma leedahay, suuqa wax ma ka goysaa on the future-kane haddii aad waqti kaaga baxay 20 sanadada soo socda oo kale ama 5 sano ama 10 sano soo socoto luqadan ma abto ma muhiimad may ku leedahay dhanka suuqa ayaa laga fiiriyaa marka lagama fiiriyo luqad trendy ah oo hadda un soo caanbaxday oo kale la buunbuuninayo laakiin baagi damba lahayn waqti lama geliyo. Marka waxaa aniga Python usoo qaadanay sababta Python horta waxaan arkaynaa ay u tahay still ay u tahay demand mid damaanad leh. Waa 4 qodob aan kusoo koobnay. Kow horta waxay tahay Python waa easy to learn waaye, waa luqad sahlan in la barto. Sidoo kale sahlan kaliya maahe waa luqad awood leh, waa powerful programming language ka mid tahay. Qodobka labaad waxay tahay Python waxaa u isticmaalnaa ama loo isticmaalaa money industry. Qaybo badan ayaa isticmaala oo dhanka suuqa ah. Hadday ahayd kuwa teknolojiyadda, hadday ahayd dhanka dhaqaalaha, hadday ahayd dhanka caafimaadka, hadday ahayd dhanka startup-ka ah kambaniyada ah ayaa isticmaala. Waana sababta ay Python ay u tahay demand luqad damaanad leh u tahay ilaa iyo hadda. Qodobka saddexaad waxay tahay Python waxay leedahay strong community ay leedahay. Community xoogan ayay leedahay. Community waxay tahay dadka isticmaala ama Python ku xiran ayaa dad aad u xoog badan oo dad aad u badan ah ayaa. Haddii luqadan ay community fara badan lahayn dee waxaa ku adkaanaysa habka aad u baran lahayd resource-gii haddii features kamid ah kambaniyada dad hore u sameeyey community oo collaborating loola sameeyo waxyaabahaas oo dhan. Haddii luqad hadda soo baxday ay tahay oo community lahayn adiga laftirkaada way kugu adkaanaysaa haddii cilladaha ama waxyaabo ka yimaado waxyaabahaas oo dhan marka. Python marka waxay leedahay waa community aad u badan ay leedahay community fara badan ayay leedahay bulsho badan ayaa ku xiran weliba aad u xoogan. Sidoo kale waxay leedahay Hack library ama libraries aad u badan ayay leedahay oo hore loo diyaariyey. Library waxaa lahaa waa maktabad waaye oo kuu diyaarsan tusaale ahaan oo kale markaa rabtid in aad project dhistid
projectiga from zero lagama bilaabo. waxaa jiro waxyaabo hore loo diyaariyey oo soo qaadanaysa keliya library ahaan usoo import garaynaysid aad ku dirsanaysid kaasoo kugu saacidayo waqti badan iyo sidoo kale qarash kaaga bixi lahaa iyo shaqaale kaaga bixi lahaa iyo aqoon badan inaad barat kaaga bixi lahayd kaa saacidayso ayay leedahay markaas waa arki doonaa. sidoo kale waxay leedahay oo Python damaanad ka dhigay inay taageerto AI. waayo dambe dunida digitalka ah waxaa aad usoo xoogeysanayo AIska, marka waxay support garaysaa AIs ay support garaysaa weliba si aad ah. sidoo kale Pythonka wuxuu sidoo kale support garayaa waxyaabaha loo yaqaan automation oo ah waxyaabaha si automatic u dhaco. tusaale ahaan hadda systemyada featurada lagu soo daray inta badan waxaa badanaya automation. waxaa kamid ah tusaale ahaan hadda Telegram ama WhatsApp waxaa jiro bot jiro oo dadka u jawaabayo oo AIska. haddaad tusaale ahaan hadda tusaale usoo qaadan shirkadda Hormuud oo kale WhatsApp waxay leedahay oo AI bot ah oo ku jawaabayo fariimihii waxyaabihii aad rabto dhan weydiinaysid halkaa shirkadda way leedahay. sidoo kale Telegramyada waxaa jira botyo oo ani section kasta waxbarashada ganacsi waxaas oo dhan kaa saacidayo jawaabayo kuwaas waxaa la automation. marka Python waxay leedahay automations ayay taageertaa oo leedahay. sidoo kale Python web application ama web development waa lagu dhisaa. sidoo kale Python waxay taageertaa APIs ay aad ugu fiican tahay. sidoo kale Python waxaa loo isticmaalaa data analysis ayaa loo isticmaalaa. waxyaabahaas oo dhana marka waxay ka dhigtay in Python ay tahay ilaa iyo hadda luqad damaanad leh. that's why marka loo dooranaya in Python la barto. qodobkaas waa isla fahanay. qodob ku xigo wuxuu ka hadlayaa isagana waxay tahay common Python development ama developer rules ama ruleska doorarka ay leeyihiin Python developers. door nuucee qofka Python developer noqda halkeebuu ka shaqayn karaa marka ama door nuucee ayuu ka qayb qaadan karaa. kow waxay tahay Python waxay caan ku tahay waa back end developer. haddaa Python baratid waxaa ku takhasusi kartaa inaad noqotid qof Python back end developer ah. waxaa arkanaa markii full stack la dhaho laba kala qaybsamaa front end iyo back end. front end waa waxa qurxinta isticmaalka userka, back end waa waxa ka shaqey lahay oo database iyo systemkan shaqadiisa functionalitygiisa qaba lahaa. marka Python haddaad baratid waxaa sii baran kartaa back end developer oo Python ah adigoo baranayo frameworkan loo yaqaan Django iyo sidoo kale frameworkan oo loo yaqaan Flask iyo sidoo kale Fast API oo API-da loogu talagalay. sidoo kale waxaad sidoo kale ka qayb qaadan kartaa inaad noqotid data analyst, qof data analyst xogaha taxliiliya adoo la isticmaalayo pandas iyo sidoo kale ayadoo la isticmaalayo qaybaha la xiriira data analysis oo Python uu leeyahay. sidoo kale waxaa noqon kartaa data scientist ayaa noqon kartaa. sidoo kale waxay tahay waxaa noqon kartaa automation engineer ayaa noqon kartaa. waxyaabahan botiska dadka sameeya fariimaha emailada automatic loo diro waxyaabahaas oo dhan dadka ku shaqeeya inaad noqoto haddaa rabtid Python way kaa caawinaysaa oo doorkan waa ka qayb qaadan kartaa. sidoo kale luqadda Python waxay kaa caawin kartaa inaad AI ama machine learning inaad baratid, engineer inaad noqotid. sidoo kale DevOps inaad noqotid dad systemyada ama softwarada cilad bixiya waxyaabahaas inaad noqotid. sidoo kale waxay tahay inaad noqotid script engineering oo dhanka cyber security waxyaabahaas scriptka la qoro inaad noqotid. intaan dhan Python marka waxay fursad kuu siinaysaa haddaa Python baratid inaad ku takhasusi kartid qaybahan oo dhan oo dhammaantood waxay ku tirsan yihiin Python ayay ku tirsan yihiin in la barto. halkaas marka waxaa u gudbaynaa Python waa bartay halka aan kasii aadi karo iyo fursadaha Python ee leedahay. waxaa usii gudbaynaa qodobkeena xiga oo kale Python waa bilaabay marka qaab nuucee ayaa u baran karaa Python halkee ka bilaabaa marka. halahan dhan waxaa practical waaye oo aan sharaxi doono roadmap ah qofka tallaabo habka markuu baranayo u baranayo ayaan ka hadli doonaa. marka koowaad
waxaan ka hadlaynaa kow horta Python markaa rabtid inaad baratid setupkeeda. Python setup fast waaye. In la setup gareeyo Python isoo kale in la rangareeyo code Python ah. Waa beginner level 0 laga bilaabayo. Qofka waa inuu bartaa how to install Python si loo install gareeyo Python inuu barto. Sidoo kale inuu barto qaabka loo rangareeyo code Python ah ayadoo la isticmaalayo markaa different ways habab kala duwan oo loo rangareeyo waxyaabahaas oo dhan. Kow waxay tahay qaabka loogu shubto Python inaad taqaanid. Sidoo kale inaad qaabka loo isticmaalo IDEs oo code editor-ka loo isticmaalo. Waxaan ugu caansan labadan code editor Visual Studio Code iyo PyCharm ayaa la isticmaalaa marka Python la noqonayo developer. Kuwo kale jiro badan laakiin common labadana ayaa caan ah. Siba waxa aad hadda full stack developer ama dadkaas noqonaysid waxaa fiican Visual Studio Code ayaa fiican. Walow PyCharmne oo dhanka Python code editor fiican yahay. Video waa jiro hadda idila wadaago video ayaa jiro hadaan geeyo YouTube-kan groupkana waa soo dhigay YouTube-kana ka daawan kartaa. Videogana uga hadalnay sida Python loogu rakibto adoo isticmaalaya code editor loo yaqaano Visual Studio Code. Ilaa waxaa rajeynaa marka ardayda inta badan inay soo daawato isbuuc hore groupka soo dhigay ilaa isbuucan dhan waan soo dhigaya dhowr mar. Waxaan rajeynaa daa hore soo daawan inaad daawatid sida loogu shubto computerkaada si sax ah. weliba last waa 3 days ka hor ayaa videogan soo geliyay. Waxaan rajeynaa in videogan kasoo faa'iidaystid. Okay. Intaas marka laga soo tago marka Python ku shubatid oo code editor-kaada ku shubatid maxaa tilaabada kale oo qaadaysa maxay tahay? Tilaabada kale oo qaadaysa waxay tahay tilaabada labaad in basic syntax haddaa fiirno programming kasta waxay leeyihiin wax loo yaqaan syntax. Syntax waxaa laga wadaa waa grammar waa rule waa xeer waaye. Xeerkaasoo marka luqadda ay u qoran tahay oo in qofka uu qoraayo oo wax ku develop garaya uu raaca ay tahay. Any programming language wuu leeyahay xeerkaas syntax u gooni uu leeyahay. Walow basic marka laga hadlaayo ay programming dhan ay ka sameyn yihiin syntax-ka laakiin hab qoraalka ay ku kala duwan yihiin. Laakiin macna ahaan waa iskaga mid. Haddaa Python syntax-keeda aad fahamtid basic-ga JavaScript waa fahamsan tahay Java waa fahamsan tahay PHP waa fahamsan tahay. Waxaa ku kala duwan yihiin bis rule-ka loo qoraayo iyo waxyaabaha la isticmaalayo bis ku kala qoran. Laakiin wixii shaqada iyo qaabka u hadlayo waa isku nooc. Marka waa inaad fahamtaa marka ugu horeyso basic syntax-ka inaad fahamtid. Understand inaad fahamtid rule-ka waxaa loo yaqaanaa waa syntax-ka waa xeerka waaye oo writing loo qoraayo Python code-ka loo qoraayo inaad fahamtid weliba qaab saxan inaad u baratid. Sidoo kale waxay tahay writing inaad qortid aan run inaad rangareysid Python script. Faylka Python waxaa loo yaqaanaa Python script ayaa loo yaqaanaa. Waa file Python ah code ku qoran waxaa loo yaqaanaa Python script inaad rangareysid. Sidoo kale waxay tahay waxa loo yaqaan Python wuxuu leeyahay indentation ayuu leeyahay qaabka code-ka laymanka uu leeyahay. Luqado kale waxay leeyihiin bracket laakiin Python bracket ma laha. Waa arki doonaa wuxuu leeyahay indentation waxa uu leeyahay oo layman isku aadana. Iyo sidoo kale wuxuu leeyahay code block ayuu leeyahay. Sidoo kale inaad fahamtid commentiga qaabka luqadaha commenti ayay leeyihiin code-ka la saaro si loo aqriyo code-ka waxyaabahaas meelaha muhiimka in la aqriyo loogu talagalay ay tahay. waxyaabaha marka waa basic syntax-ka ugu yar waaye programming-ka qofka inuu barto la rabo. Intaa marka laga soo tago maxaa kaloo la rabaa inaad baratid data types iyo noocyada data type-ka waa arki doonaa. Waa inuu ardayga bartaa main data typeska programming waa same waaye way isku waafaqsan yihiin programming kasta. Marka Python data type-keedana ayadana inaad baratid qaabka u shaqeeyo markaas. Waa kuwana marka Python data type-ku leeyahay waa integer waa number waaye float waxaa la number oo jajab ah oo decimal ah. Sidoo kale complex number waaye waa la isku daray tirooyinkan iyo kuwa kale la isku daray waaye. Sidoo kale waxay tahay string ayuu leeyahay data type oo qoraalada ah. Wuxuu leeyahay boolean waxa la true and false ayuu leeyahay iyo non type ayuu leeyahay data types ah oo non ah. waxyaabahan marka waxay tahay data typeska inaad fahamtid. Data typeska waa xogta code-ka la qoraayo nooca ay tahay waa data type marka laga hadlayo warka kooban.
intaa marka laga soo tago waxaa kaloo rabaa inuu baratid variable. maxaa la lahaa variable waa common terminology waaye oo programming kasta laga dhex maqlo. variable maxaa la lahaa marka variable waa meesha wax lagu keediyo waa store value meesha xogta lagu keediyo waxaa la lahaa variable. gudaha marka variableka maxaa soo dhex galo waxyaabaas inaa fahamtid. valuega inta badan wuxuu dhex galaa variableka ayuu dhex galaa qiimo kasta. tusaalahaan oo kale hadda email ayaa la qorayaa email qofka lasoo qaadayo waxaa lagu shubaya variable loo yaqaan email. tusaalahaan kale password variable password lagu shubaayo waxyaabahaas oo dhan markaas in la fahmo markaas variableka qaabka u shaqeeyo qaabka python variable u handle gareyso noocyada uu leeyahay variable qaabka uu qoran yahay. waxaa jira wax loo yaqaano naming convention wax loo yaqaana jirta variableka qaabka loo magacaabo magacyada uu leeyahay xeer uu leeyahay variableka loo magacaabo. sidoo kale variableka python cilada waa inta badan waa dynamic typing waaye qaabka xogta data typeka la isku bedelo inaa barataa markaas. sidoo kale qodobkan kale shanaad haddaad tagno arday inuu barta la rabo waxaa weeye tape convention waxaa lahaa isku bedbedelka datada. tusaalahaan kale datada waxaa ku jiray integer in loo bedelo float buu ahaa in integer laga dhigo. string buu ahaa in integer loo bedelo qaabka xogta la iskugu bedelo waa in aad u muhiima. sidoo kale waxay tahay input inputyada oo variable leeyahay xogtiin variableka in aad siisid iyo in xogta userka uu soo geliyo waxaa lahaa input aa lahaa. sidoo kale convert inuu bedelo data typeska noocyada kala duwan inuu isku bedelo asagoo sidoo kale userka uu kasoo qaadayo. sidoo kale input inuu user kasoo qaado userka xog soo geliyo. tusaalahaan kale hadda email waxaan anaga gelinay marna waxaa leenahay emailka inuu qofka soo geliyaa rabnaa enter your email enter your password waxyaas oo dhan enter your phone number input ahaan ayaa loo geliyaa oo arki doonaa keyboardka qofka soo isticmaalaya inuu xog soo geli karo. waxaa la isticmaalaa input function ayaa la isticmaalaa python marka la joogo. marka data la isku bedelaayana waxaa la isticmaalaa integer function float function string function. haduu tusaalahaan kale stringka ahaa waxaa waca kartaa functionkan waa float function inuu kan u bedelo. hadduu kan ahaa inaa functionka u wacatid waxaa lahaa conversions aa lahaa in isku bedelo datada la isku bedelo nooca hore nooca kale laga dhigo. marka qodobka waa muhiim marka tape conversionka iyo sidoo kale inputka in la barto waayadana waa muhiim. sidoo kale qodobka lixaad haddaad tagno qodobka lixaad waxaa lagu baranayaa wax loo yaqaan operatorska muxuu yahay markaas. operatorska waa in la adeegsado operatorska marka habka xisaabta marka la adeegsanayo wuxuu leeyahay wax loo yaqaan operatorska ku dar ka jar ku dhufo u qaybi habka loo qoro. iyo sidoo kale wuxuu leeyahay wax loo yaqaano compile wax loo isbarbardhig. iyo sidoo kale waxay tahay combination condition marka in xogta la isku keeno combination loo sameeyo waxyaabahaas oo dhan marka. kow waxay tahay arithmetic waa habka caadiga la yaqaano operatorska waa ku dar ka jar u qaybi calaamadahaas waaye. sidoo kale comparison waxaa isbarbardhig waaye. logical ayaa jira in shayga shuruud la dhigo hadduu shaygan la micno yahay shaygaas saas hala yeelo la dhaho. logical operators aa jiro qaabkay u qoran yihiin. assignment operators aa jiro. bitwise operators aa jiro. qodobka marka muhiima marka waxay kaa caawinaysa marka xogaha conversionska habka xisaabaadka iyo isku bedelka iyo waxyaabahaas oo dhan ayay kaa caawinaysaa. sidoo kale qodobkan toddobaad ee lagu baranayo markaa python developer noqonaysid weliba basic of programming markaa baranaysid qodobadan dhan waa marka qodobka toddobaad marka waxaa uga hadlaynaa qodobka waxaa asana lagu qaadanayaa wax loo yaqaana data structure waayana aad iyo aad waxay u tahay waa code of programming aa lahaa waa maskaxdii programming data structureka marka waa xogta qaabkii loo nidaami lahaa ama loo keedi lahaa. data structureka inta badan waxaa loo isticmaalaa in lagu keediyo multiple value qiimo badan in la keediyo sababto inta badan marka waxa la adeegsanaya system marka la dhisaayo waxyaabo badan aa la keediya. tusaalahaan oo kale waxaan dhisaynaa school management system oo kale waxaa jiro form ardayda xogtooda soo qaadayo oo databaseka oo la dhisaayo list
marka queryga la dhisaayo databaseka la dhisaayo data structureka aad iyo aad ay qaybta muhiim u tahay qofka halkan kasoo booda hadhow marka waxaa ku adkaanayso marka database la dhisaayo oo API xogta lasoo qaadayo oo userka laga soo qaadayo databaseka laga soo qaadayo qiimayaalkaas tira badan hal mar waxaa lasoo qaadaa dhowr qiimo student form aa kala arkaysaa oo magaciisii galaaskiisii waxyaabahaas oo dhan lasoo qaadayo markiskiisii maadooyinka lasoo qaadayo marka waa xog badan oo hal mar la keedinaya marka xogahaas marka data structureka aad ayay qaybtiisa ugu qayb qaadataa waxaa ugu caansan data structureka waxaa ugu caansan list oo qiimo qaab list u keedinayo qiimo badan uu keedinaya tables waa lamid isagana qiimo badan uu keedinaya laakiin way kala duwan yihiin habka uu keedinayo way kala duwan yihiin setiska isagana qiimo kala badan uu keedinaya laakiin wuu ka duwan yahay qaabka uu u keedinayo marka dictionary ayaa jira isagana oo aad iyo aad loo isticmaalo marka web development la sameynayo oo flaska la isticmaalayo dictionary aad ayuu loo isticmaalaa marka loo fiiriyo labadan kale marka laga reebo listiga waxaa aad loo isticmaalaa dictionaryga data structureka inuu barto waa qaybahana ugu caansan inuu barto ayana waa muhiim markaas sidoo kale qodobkeena sideedaad waxyaabaha la baranaya waxaa kamid ah control flow structure control flow maxay qabtaa marka control flow programmingka waa nidaamka kala wada waa programmingka oo isku xira system marka la dhisaayo sababtoo system maada dhan marba meelaa gelaynaa hadda su'aalahan kale marka hadda waxaan isticmaalayo batankana soo taabanayo waxbaan qoraayo waa ka laabanayo waa ku laabanayo halka marka shaqadan u kala soconayso marna ii ogolaanaysa inaan ka noqdo marna inaan doonto oo soo qaato qalinkaas waa control flow ala marka habkaas oo system ka shaqaysiinayo waa ayana waxay tahay waa aad iyo aad waaye systemka wax kala wado in la fahmo aad ayuu u habboontaa control flow maxay qabataa marka control flowga waxay qabataa systemka waxay siisaa inuu decision go-aan uu qaato go-aaman kala qaadan doono tusaale ahaan ugu fudud hadaa ku siiyo userka marka passwordka uu soo gelinayo admin marka qofka soo gelayo account ayuu leeyahay user password la siiyey passwordka marka qofka soo galo haddii uu qaldan yahay passwordkaas in loo soo celiyo passwordka uu kaa qaldan yahay iska sax haddii uu saxane in la gudbiyo oo shaashada loo soo furo waxyaabahaas marka habkaas waxaa la marka control flow ala marka systemka wax ka shaqaysiinayo marka aad iyo aad muhiim u tahay qofka inuu barto oo weliba si degan oo fahamsan oo u fahmo qaabka loo qoro qaabka loo diyaariyo inuu fahamsan yahay sidoo kale waxay tahay repeat in la soo celceliyo taska shaqa in la soo celceliyo maanta inuu shaqa in la soo celceliyo ayuu control flow qaabilsan yahay using ayadoo la isticmaalayo labada hab ayaa la isticmaalaya loop iyo sidoo kale condition la isticmaalayo loopka waxaa waaye xogta ayuu soo celcelinayaa sidoo kale waxay tahay conditionkana waxay tahay waa in shuruud la dhigaa haddii waxaas dhacayaan waxaana hala sameeyo haddii waxaas waxaan ila macniyiin conditions systemkan wuxuu ku dhisay marka conditions iyo loops uu ku dhisay marka waa kuwana marka waxa ugu caansan conditionska if kuwana ugu caansan if statement alive else ayaa ugu caansan waa conditional statement loopska waa kana for loop iyo while loop asagane ayaa ugu caansan oo loopka la isticmaalo sidoo kale waxaa jira asagana break oo loopka lagu hakiyo continue oo loopka lagu sii socodsiiyo waxaa jira pass statement oo ah in argument ahaan loo diro waxaas dhan loo diro marka sectionkan aad iyo aad u muhiimsan yahay labada section aad u dambeeyay 7 iyo 8 waa qofka hadduu soo fahmin basic programming ku soo fahmin way ku adkaanaysaa inuu wax dhiso ama wax qabsado way ku adkaanaysaa marka waana sababta dadka inta badan haday crash ahaan ugu gudba ayagoo fahmin si fiican u fahmin oo projectiyo ku dhisan oo maskaxdooda ay degin faham ahaan waxa muhiim maaha inaad aragtid ama aad qortid ama aad soo kobiyeysid laakiin waxaa muhiim in aad fahamtid ayaa muhiim ah marka dad badan marka waxaa jira marka system dhisi karin oo caqabad aan problem yar u yaqaano haddii koodka la siiyo uu yaqaanaa laakiin inuu asii fikir ahaan dhiso way ku adkaaneen sababta wuxuu fahamsaneen control flowska habka loo qoraayo habka loo dejinayo si u kala muhiimsan yihiin mid kasta wuxuu qabanayo ayuu fahamsaneen qodobkaas isna waa aad baa u adkeenaya qodobka 8aad in la fahmo marka waxaa soo gaarnay marka qodobka 9aad ayaan soo gaarnay qodobka 9aad asagana waxaa lagu baranayaa waxa loo yaqaano function waa shaqo waa su'aalahan oo kale hadda maanta code iyo waxaas aan qoraynay aan ka hadlaynay qaabka loo qoraayo iyo waxyaabahaas oo xogta iyo variable la keedinayo function marka muxuu qabtaa functionka waxaa lagu isticmaalaa waa reusable code waa code la diyaariyey
oo marar badan la isticmaalayo marka systemka intiisa badan saas u badan yahay marka database ama la diyaarinayo ama wax la diyaarinayo waxaa la diyaarinayaa function oo dhowr xog loo kala adeegsanayo sidoo kale waxay tahay function waa block of code waaye oo la isticmaalayo lasoo celcelinayo waa markaas si looga dheeraado markaas afoo in laga dheeraayo repetition wax maalin in la qorqorayo hal xog inaa maanta in aad qortid haddana mar labaad isla xogtii oo kale haddana qortid ayaa waxaa looga dheeraanaya in hal mar hal function la sameeyo kaasoo mar kastoo loo baahdo uu adeegsanaya markaas shay kastoo loo baahdo functionkaas uu adeegsanaya marka intii la rabo ayuu adeegsanaya functionkaas halkii la qor lahaa kan iyo kan mar labaad la qor ay isku eg yihiin hal function la diyaarinaya functionkaas ayaa mar walba qiimaha la rabo ayaa loo dhiibanaya qiimaha la rabo oo kan looga baahdo qiimihiis waa loo dirsanaya kan qiimihiis u dirsanaya kan qiimihiis mid kasta resultiga asay rabe ayaa u soo baxaya marka functionku wuxuu aad waa programku wuxuu ku dhisan yahay waa function waa markaas sidoo kale functionka waxyaabaha uu sidoo kale oo naga caawinaya waxay tahay inaan fahmno laga rabo waxay tahay defining in la qeexo function qaabka loo qeexo sidoo kale function qaabka loo wacdo meelo kala duwan sidoo kale waxay tahay function wuxuu leeyahay wax loo yaqaana parameters ayuu leeyahay in function xog loo dhiibo iyo argument uu leeyahay xogo in loo dirsado uu qaado ayuu leeyahay markaas in la fahmo waxaas sidoo kale waxay tahay returning value function inuu qiimo soo celinayo xog uu soo celinayo hadda marka isticmaalayna flasska oo kale URL ayaa la diri doonaa wuxuu soo celi doonaa web wuxuu soo celi doonaa page dhan oo log in ah ama dashboard ama waxuu soo celi doonaa markaas returning value markaas sidoo kale waxay tahay default argument ayaa jira oo la siinaayo qaab default ah loo siinayo uu qaado doono sidoo kale xaaja wax loo yaqaano python wax leeyahay arg iyo sidoo kale waxay tahay coarg ayuu leeyahay asagane oo in la kala fahmo functionada ku shaqeeyaan marka qaybtan ayadana aad ay muhiimsantahay marka qofka basic soo fahmo inuu haddana functionka qodobadan mid u fahmo oo practicayo oo wax ku dhiso ayaa la rabaa ayadana nagasta ka hadli doonaa ayadana programka ay soo faahfaahsan sidoo kale qodobkana 10aad asina waxaa looga hadlaya qodobkana 10aad waxyaabaha looga hadlayo waxay tahay Python wuxuu leeyahay asagana wuxuu leeyahay wax loo yaqaana built-in function asaga hore loogu diyaariyey hadda function waxaa jira laba nooc ah mid adiga aad diyaarsanaysid oo adiga shaqadaadii iyo qaabka wax uu kugu xalinayo aad u diyaarsanaysid iyo functiono hore loo diyaariyey ayaa jira marka functionada hore u diyaarsan waxaa jira marka use waxaa isticmaalaysaa marka ready made Python tools hore loo diyaariyey ayaa jira oo kaasoo loogu talagalay marka inuu faster coding marka si dhaqso marka koodka oo kugu fududeeyo xal ah waxaa kamid ah tusaale kale functionada hore loo diyaariyey waxaa jira len ayaa jiro oo tusaale kale xog soo tirinayo xog dhan ayuu soo xisaabinayaa intay tahay ayuu soo xisaabinaya qiimaha ku siinaya marka intaas ayuu ku leeyahay marka waxaa jira function asina range la dhaho oo wax loo dhiibayo wuxuu leeyahay waxaas ilaa intaas gaarsii tusaale kale intaa qiimo ilaa 100 aa soo xisaabin lahayd waxaa leedahay ilaa waxaa leedahay loopka kale loo isticmaalo marka ilaa intaas qiimaas ha gaara ayaa leedahay markaas waxaa jira marka numerator aa jiro asina functionada kamid ah markaas waxaa jira function loo yaqaan zip ayaa jira way badan yihiin printerka ayaa kamid ah kuwa data ka arkayna kamid ah oo ahaa upper waxaa jira lower way badan yihiin function waxaa jira oo yara built-in function hadda inta ugu caansan soo qaadanay laakiin way badan yihiin marka la raadiyo mid u arki doonaa marka waa shaqo badan adiga kood badan aa qori lahayd ayaa kaa caawina marka functionkan inaad qabsatid oo howl ku qabsatid marka printia kamid ah in wax kood soo daabaco kala kamid ah waxaasoo kala kamid markaas way badan yihiin marka waa functiono hore u diyaarsan oo la isticmaalayo markaas inaad u qortid ma u baahna marka shaqo inaad ku qabsatid bis aa u wacdid function call aa dhahdid bis ayuu kaaga baahan yahay oo shaqada u dhiibatid markaas waxaan soo gaarnay marka qodobka 11aad ayaan soo gaarnay oo asana waxyaaba lagu baran doono koorsadan waxaa kamid ah waxa loo yaqaana string manipulationkan waxaa kamid ah formatting in la sameeyo koodka formatting la sameeyo si hadhow xogta soo baxaysa ay noqoto mid clear ah markaas xogta soo baxayso mid clear ah inay noqoto oo printer functionka xogta soo saarayo inuu soo celiyo format output inuu soo celiyo markaas waxaa kamid marka string methodka ayaa kamid ah oo la isticmaalo midka loo yaqaano kana la isticmaalaa formatting stringkan f stringka lahaa iyo format stringki waa
waa functionno waaye markaas oo ku hagaajinayo outputka soo baxaayo ayaa hagaajinaya marka qaabka uu noqonayo ayana waxay kaa caawinaya marka xog lasoo bandhigayo in aad xogtaas si qurux badan aad usoo bandhigtid sidoo kale waxaa gudbina marka qaybtan ayadana oo qayb aad iyo aad muhiim u ah qaybtan waxay muhiim u tahay markaas waa modular wax loo yaqaano modules wax loo yaqaano iyo packages moduleska marka iyo packageskan maxay naga caawinayaan marka waxay caawinayaan markaas tusaalahan oo kale shaqaa la qabanaya import in lasoo import gareeyo aan organizing in la organize lagu sameeyo ururin lagu sameeyo code tusaalahan like professional project tusaalahan kale project weyn oo kala dhisaysaa faylal kale oo la isticmaalayo tusaalahan kale hadda markii database waxaas ama APIs kala isticmaalayo waxaa jiri doono foomam waxa la diyaari doono oo xogta soo qaadi doono kuwaas marka in lasoo import gareeyo oo meel kale ugu wacatid waa fail Python ah oo aad diyaarisid oo haddana fail kale aad uga dhex wacanaysid oo halka shaqada ku qabsanaysid intaa mar labaad failkaas dib ugu qori lahayd failkaas ayaa meel kale ugu wacanaysaa marka packageska waxaa kamid asana jira Flask package badan uu leeyahay oo Python ayuu leeyahay jiro waa lasoo import gareeyaa kuwaas moduleska marka waa fail su'aalo kale fail oo hore u diyaarisay ayaa fail kale aad diyaarisid ayaa uga dhex wacan kartaa markaas oo halkan failkan lagu soo bandhigi doonaa xogta tan ku jirta halkan lagu soo bandhigi doonaa adigoo kaliya dib u qoraynin aad u wacanaysa marka import ayaa leedahay u wacanaysaa kadib halkaas laga dhex isticmaali doonaa marka xogta inta ku jirta sidoo kale waxay tahay creating in la sameeyo and using in la isticmaalo custom module baad leedahay inaad isticmaashid sidoo kale waxay tahay inaad fahamtid waxa loo yaqaano Python standard library su'aalo kale Flask Django waxaas dhan waxa waaye waa library waa aad wuxuu leeyahay library fara badan oo shaqooyin qabanayo ayuu leeyahay Python marka kuwaas modulekaas ayaa lagu bartaa sectionkan ayaa lagu baran doonaa qaabka ay u shaqeeyaan marka qaybta marka waxay ka caawin doontaa marka in aad project dhistid weliba qaab professional ah in aad project u dhisi kartid marka qaybtan aad fahamtid qaabka u shaqeeyaan iyo waxay yihiin markaa fahamtid waa section ka caawin doono qaabka waxyaabaha loo dhiso projectiga loo dhiso qodobkayna 13aad caawa hordhaca ku qaadan doono waxaa kamid ah waxa loo yaqaano file input output saa ogsoona marka reading in lasoo qaato and writing in la qoro file in xog lagu qoro xog laga soo qaato faylal tusaale qaadi systemka la diyaarinayo faylala lasoo qaadi doonaa excel data lasoo qaadi doonaa systemka la keeni doonaa sidoo kale systemka laftarkiisa si hadhow qolooyinka data analysis loogu diro in lasoo qaadi doono excel ahaan loogu diri doono ama pdf loogu diri doono xogta output laga soo saari doono waxyaabahaas oo dhan markaas for saving in la save gareeyo xog qaab loo save gareeyo ah sidoo kale xog in lasoo qaato ah adoo la isticmaalayo file input output waxa la jiri doono waana muhiim ah qofka basic baranaya inuu barto markaas su'aalahan kale waxaa laga soo qaadi doonaa waxa loo yaqaano different fileska laga soo qaadi doonaa formatting su'aalahan kale text file text ay laga soo qaato CSV oo Excel waxaas laga soo qaato JSON file in la soo qaato waxaas kale marka in xog file lagu soo qoro JSON in laga soo akhristo waxaas dhan marka qaybta in muhiim waaye input outputka in Python aad taqaan markaas qodobkana 14aad isla gaarnay qodobkana 14aad maxaa lagu baran doonaa markaas waxaa lagu baranayaa oo qofku inuu marka jadwal ahaan uu raacayo markuu baranayo basic programming ka ah ayaa ah qaabtan oo la yaqaan error handling marka uu soo bartay waxyaabihii basic oo dhan oo soo bartay oo hadda uu yahay qof basic of programming oo yaqaan Python ah qaybtan asagana inuu yaqaano oo ciladaha imaan karo sababtoo waxaas qofka barta ciladaha ku imaanaya markasta ciladihii qaabka loo wajaho qaabka loo xaliyo waa muhiim marka ciladaha qaabka loo xaliyo markaas handling errors in la xaliyo ayuu isticmaalaya marka properly use ayuu isticmaalaya code kaasoo marka does not crash so cilad kugu qabsan markaas ciladaha kahor in laga hortago marka ciladaha waxaa la isticmaalaa function oo loo yaqaano try except block loo yaqaano racing exception ayaa jira asagana custom exception ayaa jira waxaana marka waxay yihiin qaybaha ciladaha systemku imaan doona in laga hortago hore loo sii diyaariyaba qaybaha markaas method kan la isticmaalo markaas ugu dambeyn marka qodobkana 15aad ee roadmapka
Python programmingka la baran doono waxaa ka mid ah qodobkan 15aad waa qodobka ugu muhiimsan waa marka intaan qofka markuu soo fahmo oo waqti ku soo bixiyo qaybtan inuu fahmo marka oo ah object oriented programming oo loo yaqaano OOP marka OOP-ka marka qofka waxay ka caawinaysaa marka waa meesha marka dadka most system ay u dhisi laayihiin marka sababta systemyada qofka oo inuu system alifo ama project inuu dhisa rabo waa inuu yaqaana OOP-ka marka OOP waa projectiga qaabkii oo loo naqshadeyn lahaa oo u shaqeyn lahaa waa core-ka waa markaas waxaa boolean la dhisay scalable program waa program dhammaystiran oo scalability-giisa u dhammaystiran la dhiso user ayuu la isticmaalayo waxay tahay class iyo object wax la isticmaalaa marka database kala isticmaali doono system database ku shaqeynayo waxyaalahaas la isticmaali doono API waxyaalaha la isticmaali doona classes iyo object la isticmaali doona waa la iskala soo tegi doonaa variable waxyaalahaas oo dhan waa la iskala soo tegi doonaa sidoo kale waxay tahay classeska inuu fahmo object inuu fahmo kow sidoo kale waxay tahay wax loo yaqaano inheritance wax la jiro glass kala dhaxli doono glass meeshan ah oo weyn ayaa wuxuu dhaxli doonaa glass kale ayuu dhaxli doonaa oo xogtii oo halkan ku jirta glasskan ayaa laga qaadi doonaa glasskan si mar labaad xogtii loo soo celcelin sida data functionska ay sheegeen oo kale ayaa lasoo dhaxli doonaa marka halkan xogaa taalo xogtaas glasskan kale meesha mar labaad uu isticmaala intuu kasoo dhaxli doonaa xogta intuu ka dhamaystiri doonaa marka so halkan marka la dhisaayo waxaa waa database marka la dhisaayo student waxaa jira teachers sidoo kale waxaa jiro emailada ruleka waxyaas oo dhan qaybta aad ugu shaqeynayeen waa markaas waxaa jira marka mida ayaa loo yaqaano encapsulation loo yaqaano xog marka in kala qaybsan oo kale xogaha qaabka encapsulation loo sameeyo oo kale waxyaala marka qaybtan object orientedka weliba saddexdan qofku inuu fahmo markuu basic programming joogo inuu saddexdan soo fahmo waa muhiim markaas marka 15kan qodob ayaa ah qofka markuu baranayo Python fundamental Python programming asaasi marka inta markuu soo bartay qofka maxaa marka nagasti ah marka maxaa la rabaa marka inuu diiradda saaro markaas maxaa xooga saari doona marka what is layna muxuu baranayaa after fundamental marka fundamentalka uu soo bartay waa qof u fadhiso fundamental programming Python ah u fadhiso maxaa xiga marka qofka uu baranayo markaas maxaa masti ah markaas oo haystaa markaas inuu yaqaano ay tahay marka oo xiga kow waxay tahay inuu barto wax loo yaqaano GitHub inuu barto GitHub waxa waa collaboration waa inaad koodkaagii la maamulo waa ama lagula maamulo dad ha kula shaqeeyaan badanaa marka dadka systemyada la dhisaayo waa inuu GitHub lahadaa farshanada si loo maamulo softwarekan farshanka hore ka yimid kan hadda soo socdo waxyaabahaas oo dhan marka haddii dad aa kala shaqeynaysid waxyaabahaas oo dhan marka git iyo GitHub markaas inuu qofka barto markaas sidoo kale waxay tahay inuu barto wax loo yaqaano debugging qaabka loo dibgareeyo ama deployment waxyaabahaas oo kale problem solvingka cilad bixinta waxyaabahaas inuu barto markaas sidoo kale waxay tahay working inuu barto with APIs inuu barto maadaama Python fundamental uu soo bartay sidoo kale waxay tahay writing inuu diyaariyo clean code oo nadiif inuu code nadiif inuu qoro best practice inuu sameeyo waxyaabahaas oo marka inuu joogteeyo ayaa looga baahan marka qofka sidoo kale maxaa important ah markaas important conceptiga maxaa qodobada conceptiga muhiimka ah marka maxay tahay kow waxay tahay qofka inuu conceptiga yaqaano waa muhiim kow virtual environment oo env waxa la jiro tusaale virtual environment waxa laga wadaa env waxa laga wadaa koodka marka la dhisaayo tusaale ka projecti oo flask ama Django ayaa wax ku dhisaysaa waxaa library badan ku shuba doontaa marka librarygaas marka computerkan hadhow maadaama software kala duwan aa ku shaqeynaysid hadhow cilad inuu ku mada laga yaabo koodkas isku dhacaan marka waxaa jirto project kasta wuxuu leeyahay inaa u samaysay env waxa loo projecta wixii oo library waxyaalahaas oo dhan dhexdiisa lagu shubo hadhow marka qof projectan kala shaqeynayo waxyaabii adiga computerka ku shubatay ma oo qofkaas laakiin hadda env marka hore aa ku dhisatay waa u diraysa failka wuxuu ogaanayaa projectidii aad install garaysto dhan meesha ku jira markaas si fudud qofkaas oo install garay karaa asoo ku weydiiyo marka qaybta marka waxay ka caawinaysaa marka in projectii waaweyn marka la dhisaayo in aad ku dhistid virtual environment waxa la inaad baratid qaabka loo sameeyo inaad baratid waa qodobada muhiimka waa marka conceptiga muhiimka sidoo kale inaad taqaanid waxaa loo yaqaana pip oo packages inaad fahamtid oo Python
oo dependency-ga la isticmaalo iyo management-kooda inaad fahamtid sidoo kale inaad fahamtid REST API inaad fahamtid JSON handle inaad fahamtid qaabka xogta JSON ayadoo la isticmaalayo Postman ayadoo la isticmaalayo waxyaalahaas waa markaas intaas marka laga soo tago marka qofka marka Python developer ayuu noqday oo Python fundamental ayuu yaqaanaa marka maxaa xiga marka qofka uu dooran karaa marka next waa inuu doortaa marka career-kiisa xirfadiisa inuu doorto marka dadka inta badan markay halkan soo gaaraan waxay isku dayaan marka dhowr meel inay madaxa la galaan marka waxaa fiican marka in hal meel aad diiradda saartid aad guul ka gaartid markaas waqtigaada iyo juhdiga aad soo bixisay aad halkan meel haddana iskugu geysatid waxaa ku sisi doonaa marka dhowr part ayaa ku disi doonaa oo ilaa A iyo B iyo C iyo D ah markaas mid kasta wuxuu yahay kuu sheegi doonaa marka part A marka qofka wuxuu dooran karaa inuu noqdo web development asagoo weliba dooranaya back end hadda wuxuu leeyahay waxaan bartay Python weli waxaana qaybta web development-ga back end developer ah marka shaqo wuxuu baranaya marka back end-ga wuxuu baran karaa marka waxyaabaha back end-ga uu baran karo waxaa kamid ah kow Flask ayuu baran karaa Orem sidoo kale wuxuu baran karaa Fast API ayuu baran karaa weliba modern iyo fast weliba waa modern waa kuwan Flask-ga sidoo kale wuxuu baran karaa qofka Django ayuu baran karaa Django iyo Flask waa isla web development-ga loo adeegsado laba framework ee ugu caansan waa markaas waa kala arki doonaa mid kasta waxay yihiin waa full feature waa midkan waxay tahay waa mid adiga aad waxa aad rabtid sid upgrade-sanaysa kana wixii oo dhan ah mar lagu siinayaa kana waa late waaye waa mid khafiif waaye wixii adiga aad rabtid bis ku soo darsanaysaa bis marka inta badan qofka markuu bilaabayo web development Python waxaa lagu leeyahay inuu Flask barto kadib Flask markuu barto kadib Django way u fudaanaysa marka inuu barto sidoo kale inuu barto SQL inuu barto asoo ku shaqeynaya Python database inuu barto uu yira Python back end qaybta database-ka SQL labadan Postgres iyo MySQL Python markay tahay waxaa fiican inaad baratid Postgres SQL inaad baratid ayaa aad u muhiimsan hadaa hore usoo baratana waa faa'iido dheerada hore aa u hayst sidoo kale waxay tahay inuu barto web development markuu noqonaya back end-ga authenticationska user roleska systemka authenticationskiisa in la maamulo authorizationska waxyaabahaas in la maamulo waxaa laga wadaa marka systemka marka la dhisayo qayb waxaa jirta authentication qaybaha ugu adag waa in role la sameeyo adminka oo qaybo kamid ah shaashada arki karo wax maamuli karo userska qaybaha qaar inay awoodi leeyihiin waxyaabahaas awooddaas marka la kala siinayo in la barto markaas ayadoo la isticmaalayo midkan JWT ama midkan kaloo loo yaqaan sessionska loo yaqaan labadaas midkood oo baran karaa kow marka option A waa intaas marka option A web development labada mid dooro Flask kadib SQL database-kaas inaad taqaanid authentication waxyaalahaas inaad taqaanid markaas sidoo kale waxay tahay haddaa dhinacaas kasoo goysid oo web development aan rabin waxaa aadi kartaa dhankan iyo option B oo ah part B data analysis inuu barto data analysis wuxuu baranaya markaas Python markaa baranaysa data analysis waxaa baranaysaa NumPy Pandas Matplotlib ama Libkan ama Seapon waxyaabaha dhan markaas kulli inaad baratid waa inaad mid kamid ah aad barataa marka oo isku nooc kuwaan markaas inaad baratid badanaa waxaa ugu caansan Pandaskan iyo NumPygan ayaa la bartaa sidoo kale inaad baratid Excel plus Power BI inaad baratid oo hore aa u taqaanid weliba integration ah option B markaas waxaa noqonaysaa marka data analysis qof bartay oo Python data analysis aa ku shaqaysanaysaa xirfadaas sidoo kale waxay tahay in aad option C aadid qof automation script inuu ku shaqeeyo OIS automation inta waxay tahay waxyaabaha waxaa isticmaala shirkadaha aad loogu baahan yahay manhajka oo web development iyo data analysis marka loo fiiriyo uu ka fudud yahay software waxaa jiro kaa caawinayo diyaarsanba keliya waxay kaaga baahan inaad Python fundamental inaad taqaanid waxaas ayay kaaga baahan yihiin web scraping ayaa jiro asagana waxaa jira schedule script ayaa jira working qaabka u shaqeeyaan files and folderska waxyaabahaas shaqeeyaan marka hadhow qof waxaa noqonaysa marka automation and scripting xirfadaas yaqaan adagoo baranaya marka optionskan adagoo baranaya markaas
hadii kale option D waa advanced feature waa weliba xilligan oo damaanad leh oo suuqa mustaqbalka ay ku tirsan yihiin optionkan inaa baratid AI and machine learning inaa baratid AI and machine learning weliba hadda xilligan takhasusi waaweyn ay noqdeen oo ilaa bachelor laga diyaariyo ay noqdeen Python waxaa baranaysaa for data iyo machine learning isku baranaysaa sidoo kale waxaa jira skate learning ayaa jira model evaluation basic deep learning ayaa jira marka haddaad rabtid dhinacan waxaa aadi kartaa AI machine learning ayaa aadi kartaa markaas waa deeply waa advanced ah waa weliba ins marka wuxuu career-ka jira marka Python fundamental aad qaadatid intaa midkii hobbigaaga inaad raacdid marka aad ku takhasustid markaas aad ku shaqaysatid talada u dambeysa marka final advanced talada u dambeyso 2026 aad ku guuleysanaysid markaas maxay noqonaya marka kow waxay tahay horta in aad joogtiin samaysid inaad joogtiis wax kasta wax marka la joogtay ayaa wax miraheeda la helaa tusaale maalinkii 1 hour ilaa 2 hour inaa maalinkii aad gelisid waqti oo mar research aad ku samaysid mar practical aad ku samaysid mar revision aad ku samaysid luqadda programming-kan waxay tahay sideeda waxay tahay waa gacan ku hayn waa hadaadan gacan ku hayn oo maalin kasta ugu yaraan 1 saac ama 30 minute aad ku bixin waa from zero u laabanaysaa markaas sidoo kale waxay tahay inaad dhistid marka projectiyo yaryar project inaad dhistid daily ah waxyaabihii aad baratay inaad joogtaysid sidoo kale inaad share garaysid safarkaagii inaad bulshada la wadaagtid hadhow waxay ka caawinaysaa backgroundkaagii waxyaabahaas social media inaad kusoo bandhigtid waxyaabaha hore u qaban jirtay hadhow dhanka shaqada iyo waxyaabahaas ay ka caawin doontaa markaas sidoo kale inaad ku birtid community inaad ku birtid bulshooyinka xirfadahan ayna kula bartay inaad la midoodid si aad uga heshid updateska iyo warbixinada si aad uga heshid inaad samaysid collaborate inaad ka qayb gashid kulamada waxaas inaad ka qayb gashid sidoo kale waxay tahay focus inaad diiradda saartid practical skills inaad practicalisid xirfadaada inaad not only clear theory bis inaad diiradda saaran oo practical samaysid cashir kasta aad theory u qaadatay inaad practicals oo qortid oo maskaxda aad shiishid waa waxyaha kaa dhigi kara qof guuleysto marka intaas waxaa kusoo koobaynaa mawduuceeni ahaa sidee loo noqdaa Python developer sidee loo noqdaa marka Python developer intaan waad waqti gelisid ayaa kaa xigta inaad noqotid marka waxaan rajeynayaa marka in aan isla fahamnay marka maanta bilaabo rabo Python halkaa ka bilaabayo ilaa hadafkayga meesha uu gaarayo marka waxaan rajeynayaa marka in mawduucan waxyaabo badan oo indhaha kuu furaayo aad ku dhex aragtay marka caawa halkaas uu nooga soo egyahay marka meetingkeena waxaa imaan doonaa marka inaan wixii ra'yigiina aan iswareysano